الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha aqalka sare xubnaha guddiga doorashada xubnoorka ku meel gaarka ee golaha aqalka sare senatarada golaha aqalka sare xogayaha guud ee golaha aqalka sare agaasinka iyo shaqaalaha aqalka sare mutasharrafta ka soo qayb gashay fadhigaani warbaahinta kulligiin assalaamu calaykum mudanayaal iyo marwooyin iyo senatarada sharafta leh waxaan marka hore alla ugu mahad celinayaa in uu inoo suurtageliyay in aan maanta hor imaado fadhiga guud ee golaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya anigoo u taagan qabashada xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane gudoomiye iyo mudanayaasha senatarada sharafta leh waxaan si qoto dheer ugu baaran degay in aan isku soo sharxo xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare aniga oo ku kalsoon in aan xilkaasi si firfircoon ugu adeegi karo qaranka ummadda Soomaaliyeed kana qayb qaadan doono hogaaminta golaha sharafta leh sidii ugu gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran si waafaqsan dastuurka dalka xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka u taalo aniga oo ka duulaya dhaartii aan u marnay gudashada waajibaadkeena qaran sida aad la socotaan golaha aqalka sare waa hay'ad cusub qaab dhismeedkeeda dawladda federaalka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markaasna haatan bilaabaysa muddaxuleedkeedii labaad ayada oo casharo fara badan laga bartay muddaxuleedkeedii koowaad ee golaha aqalka sare kuwaas oo aan u aragno in ay nagu xigi doonaan xanaanka ugu habboon ee golahu u gudan karo waajibaadka qaran waxaa kaalin mug leh aan ka ciyaari doonaa sidii golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ugu qayb qaadan lahaa kaalmihiisa dastuuriga ah xeer dejinta dalka oo ay ku jirto ansixinta miisaaniyadda sanadlaha ah ee qaranka la xisaabtanka xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda federaalka ah dhamaystirka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah oo muddo soo jiitamayay xoojinta nidaamka federaalka ah ee dalka ayadoo si buuxda loo kala saarayo awoodaha dawladeed ee labada heer xanaanka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah dhismaha nidaam garsoor oo madax bannaan kaas oo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed isla markaasna ku dhiirigelin kara madaxda labada heer saraakiisha iyo shaqaalaha dawladda iyo shacabka in ay u gar dhigan karaan kuna qancaan go'aamadiisa xoojinta dimuqraadiyadda iyadoo la jaangoonayo siyaasadda qaran ee dhismaha xisbiyo siyaasadeed iyo u diyaargarowga doorasho qof iyo cod ah dalka ka hirgasha 2026 dhammaan arrimaha kale ee hortabinta u leh qaranka Soomaaliyeed mudane gudoomiye iyo mudanayaasha senatarada dhammaan arrimaha aan kor ku soo sheegay waxay gundhig u yihiin geedi socodka dib u dhiska qarannimadii ee naga burburtay 1991kii oo waxaan aaminsanahay in muddaxuleed kasta oo laga soo bilaabo dawladii lagu soo dhisay carta iyo in dawladnimadu ay ku jirtay tijaabo iyo hor u socod joogto ah waxaan qabaa in la gaaray xilligii nidaamka dawladeed lagu dhisi lahaa tirir adag oo la jaan qaadi kara nidaamka caalamiga ah aynu ka mid nahay haddii ay soo doorataan gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan idin ballan qaadayaa in aan kala shaqayn doono saaxiibaday ku guuleysta xilka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka sidii aan ugu hogaamin lahayn sharciga iyo himilooyinka waaweyn ee qaranka uu leeyahay waxaan rabaa in aan ku soo gabagabeeyo golaha aqalka sare iyo golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay isku mid yihiin ayna yihiin hal hay'ad oo xeer dejineed ee dalka looga baahan yahay in ay markasta ay u wada hoggaansamaan
dastuurka ku-meel gaarka ah iyadoo shuruucda dalka u taalla ay u howlgalayaan si ay u muuqato isku duubnay iyo wada shaqayn ku dhisan sharci iyo nidaam dawladeed. sidaa daraaddeed waxaan ku baaqayaa in aan ka wada shaqayno sidii loo sixi lahaa qaladaadkii sharci ee ka dhacay baarlamaankii muddaxileedkiisii dhammaaday ee baarlamaankii 10aad kaas oo sababay inuu madaxweynuhu saxiixo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa xubno ka mid ah golaha adeega garsoorka iyo shuruuc kale oo aan soo marin golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn waxaan si mas'uuliyad ku dheehan tahay ugu codsanayaa dhammaan senatarada sharafta leh inay codkooda siiyaan uguna aaminaan xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan idin ballan qaadayaa in si hufan oo ku dhisan sharci ugu shaqayn doono golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waa mahadsantiin.